الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. walaalyaal barnaamijkeennii ramadaan kariim baynu ku guda jirnaa. waxaan ka hadlayaa zakaatul fitr, zakaada fitrada, waayo waqtigeedii baa soo dhawaaday, way soo gaagaadhay xilligii la bixinayay. marka axkaamteedaan jecelahay caawa insha allahu tacaala inta ilaahay subxaana wa tacaala inoo qadariyo ee waqtiguna inoo saamaxo inaan wax ka sheegna insha allahu tacaala. xukunkeeda waxaa farad yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam farad yeelana waa amar sidaa marka ilaahay subxaana wa tacaala ay tahay inuu sidiisa u qaadano. ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay waman yutic arasuula faqad ataaca allah. qofkii taacadeeya ee maqlaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilahayna subxaana wa tacaala wuu maqlay. waman yushaqiq arasuula qofkii kasoo horjeesta rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa markuu u cadaatay dariiqii saxsanaa u arkay dariiqa muminiintana ka weecday waanu kasii jeedinaa dariiqa saxa oo jahanamana toosu gelinaa buu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi. fariidatun calaa man yay farad ku tahay arrinta taa fitradu ee sunnadii waxay farad ku tahay qofka weyn, qofka yar, dakarka, meelka, untha ama dhidig iyo labka labadaba, xorka iyo qofka cabdiga adoonka iyo qofka xorkaaba. qaala cabdullahi bni cumar radi allahu tacaala canhu nabigu alayhi salatu wasalam wuxuu nagu farad yeelay zakaatulfitri min ramadaan saac timira ama saac shaciira ee galley ama waxyaalaha lamida saac ka mida inaanu ka bixino adoonka iyo qofka xorka ah iyo qofka dakarka ah iyo gabadhaba, wiilka iyo gabadhaba, qofka yar iyo qofka weyn muslimiinta oo dhan muttafaqun caleyh. qofka uurka ku jira ilmaha beebiga uurka ku jira miyaa laga bixiyaa? waajib kuma aha ilmaha uurka ku jira inaad ka bixisid ilaa an yatatawac qofkii sadaqa ahaan uu ku daro wax mooyaane. amiirulmuminiin cuthmaan radi allahu tacaala canhu ayaa waxaa laga soo wariyey markay fitriga noqotay ramadaanta dhammaadkeeda lacagta la bixinayo hadday xaaskiisu ay uur leedahay wuu ka bixin jiray radia allahu tacaala canhu. marka qofkii ka bixiyaa axsan yani ajarka u siyaadaya laakiin waajib kuma aha. marka qofka waxaa waajib inuu naftiisa ka bixiyo iyo qof allaale qofkii nafaqadiisu ay waajib ku tahay xaaskiisa ama qaraabadiisa dadkii guriga kula noolaa ama guriga ka shaqaynayay kadaalika inuu qofka baniaadamkii uu ka bixiyo. hadday laakiin iyagu iska bixin kareen xaaska oo kale hadday xoolo leedahay iska bixin karayso saasaa labada la qaatay. gabadhan ku shaqaynaysa hadday lacag fiican qaadato inay nafteeda ka bixiso ayaa la qaatay. laakiin qofkii aan haynin qofka guriga haya ee maamulkiisa haya ayay waajib ku tahay inuu insha allahu tacaala iyagana ka bixiyo. waxaana waajib ku tahay uun qofka haya wax ziyaado ka ah intuu nafaqada ciidda u baahan yahay wixii ziyaado ka ah saac wax ka badan qofkii hayuun bay waajib ku tahay. haddii saac ama wax ka yaraad haysatid uun adigunbay da kugu filan tahay kugumay waajibin markaa zakaatulfitradi. qaala tacaala fattaquu llaha ma statactum. ilaahi subxana wa tacala intii gitaalkiina ka baqo iska ilaaliya. nabiguna wuxuu alayhi salaatu wasalaam xadiidkii muttafaqun caleyh haddaan arrinaydu ku amro arrintaa waxaa samaysaan ka qabataan intii aa kari karaysaan qabta. maxaa loo farad yeelay? waxaa loo farad yeelay fuqarada in ixsaan loo sameeyo la soo dhaweeyo, in fuqarada dawarsiga loo diido maalinta ciidaha oy dareemaan inay dee ciidayaan ay farxayaan oon la arkin ciidaha iyagoo meelaha taagtaagan oo dadka dawarsanaya, laakiin ay dadka ladan iyo cid walba ay la ciidaan, ay la farxaan, ay la enjoy garayaan ayaa arrinta taa loo soo dejiyey. waayo ilaahay subxana wa tacaala ciidda dadkayda wada soomanaay oo dhan ayuu ilaahay subxana wa tacaala ciidda ugu talagalin ciidda dadka lacagta iskale oo keliya. kadaalika waxaa ka mid a waxyaala loogu farad yeelay in qofka baniaadamkii khuluqa karamka iyo deeqsinimada uu qofku barto, uu qofku bakhaylnimada iyo gacanadayga iyo taagtaagnida uu iska yaraayo iska khafiifiyo. waxaa kadaalika ku jirta qofku inuu mujtamac wada shaqaysan karaa oo wax wada qabsan karaa oo isxaal og inuu mujtamacu noqdo. qofka marka lacagta haysta ee uu gaajoodo wuxuu ogaanaya dad badan oo fuqaray inay isagu wuxuu gaajooday badhow saacadood bisha ramadaan oo kaliya dad baa jira sanadka oo dhan gaajoonaya. marka isaga laftarkiisa iimaan kale iyo ixsaan wanaagsan ayaa gelaya ayay culimadu yidhaahdeen. kadaalika waxay culimadu yidhaahdeen waxay ka mid tahay marka aad lacag xoolaha aad bixisid inaad ilaahi subxana wa tacaala umahad celisay, in ilaahi subxaana wa tacaala soonkii ka aqbalay oo kuu fudeydiyey asbaabaha soonkuga lagu aqbalay ka mid tahay. waxay kadaalika culimadu kadaalika yidhaahdeen waxyaalihii soonka yaryaraa ee aad qofku ka tagtay soonkii ama dembiyadii yaryaraa ee qofku galay ayaa ilaahi subxaana wa tacaala qofka baniaadanka ugu kafargareeya si salaada sunnadiiba ay noogu kabto salaadeenna fardiga ee waajibka. wuxuu yidhi ibnu cabaas radi allahu tacaala canhu
qaala wuxuu yidhi nebigu wuxuu inoo farad yeelay zakaata fidrada duhratan lisaa'im iyadoo saa'imka caawinaysa min allagwi saa'imkii ka masaxaysa lagwigii iyo caydii iyo dhibaatadii wa tucmatan lilmasaakiin masaakiintana quut bay u noqonaysaa buu yidhi faman addaaha qabla asalaa fahiya zakaatu maqbuula qofka salaada ciidda ka hor bixiya waa zakaatulfitra maqbuula ah qofkii salaada ciidda kadib bixiyaana sadaqaadka ka mida ayay ka mid noqonaysaa rawaahu abu daa'uud wabnu maajah noocii baa laga bixinayaa موضوع حبد بينه وضنا سينو تسيف يعني نفهمه نوعي بقى بحنية waxay culimadu yiraahdeen waxa laga bixinayaa cuntada beledka laga cuno marka wadanka la degay cuntada laga cuno bariis ha noqdo sabiib ha noqoto bur daqiiq ha noqoto timir iyo wixii lamida ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa laga soo wariyay Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu fi al-hadith الذي رواه الإمام البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يلي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فرضي زكاة الفطر صاعا من تمر صاع تمرة أما الصاع هرورة مقلية أما الصاع تمرة النبي عليه الصلاة والسلام وحنا نبحين كنا فطرة وقت النبي عليه الصلاة والسلام صاع من صاع طعامه نبحين كنا وكان طعامنا الزبيب والإقط والتمر مكان عنتظر البرقة وحياة تمر إيو سبيب وحيل مذا أيو يرغال إلهي كالنقضي miyaa laga bixin karayaa xooluhu waxaanay cunaan lagama bixin karayo bay culimadu yiraahdeen waxa xooluhu ay cunaan xoolaha cuna waxa laga bixinayaa loogu talagalay bani aadanku wuxuu cuno tucmata lil masaakiin walaysa tucmata lil bahaa'im waxay wal xayawaanaat tucmad waxay u tahay inay cunaan ay ku farxaan dadku ma aha inay ku farxaan ay cunaan xayawaanadu bay yiraahdeen ma laga bixin karayaa dhar ama furaashiyo ama weel iyo wixii lamida waxay culimadu yiraahdeen lagama bixin karayo waxa waayo cunto ahaan baa loogu talagalay waxa kale laga bixinayaa waa cuntada aadamigu cuno marka wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam ku cayimay illa kama talaabanayso wax arrin kale aan cayimin uma talaabanayso bay fuqahaagii culimadu ay yiraahdeen laakiin qofkii sadaqa ahaan dhar iyo kadalika ku daraya bixinaya waa sadaqa min sadaqaat laakiin zakat haday noqoto waliba zakaatul fitra ay noqoto waa inay noqotaa waxyaalaha la miismiiso ee dadku ay cunaan kadalika kaash ma la bixin karaa waxay kadalika fuqahaagu yiraahdeen kaashku lama bixin karo لأن وياتاسي waxay khilaaf u tahay amarkii nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu amray marka kaashka waad soo qaadaysaa qofka hadda xidasiisad qofku laakiin waa inuu ku iibsadaa ama ugu iibisaa ama timir ama haruur ama wixii lamid ah laakiin ma in qofku kaashka intuu qaato oo isticmaalo waayo kaash ahaan de loogu talagalay waxa loogu talagalay in laga bixiyo cunto waxa laga wada walaalayaal in miskiinku maalinta uu dhargo وعنتظر هلكو جاركيسا لدن ay cunayaan inuu cuntada karsado maalmaha ciida oo isaguna sida ugu barwaaqaysto ayaa kadalika laga wadaa marka qiimaha la bixinaya wuxuu ka soo horjeedaa saxaabadu waxay bixin jireen waxay bixin jireen saxaabadu saacna waa idin sharxi doonaa intuu yahay waa 2 kiilo iyo 40 gram waa idin soo wadaa isagana hawshiisa nabiga kaleey salaatu wasalaam saasuu inoo sheegay marka waa zakaad waa cibaada zakaadaduna waa cibaadaduna waxa weeyaan sida loo sheegay inaynu sideeda u bixino ma aynu maskaxdeena ka keenno kaash siiyay kan bixiyay wixii kadalika lamidaha marka hadii kale wanaad bixisaan iyadoo haruura ama iyadoo marka qofka midna diraya ee meel u diray kaashka waa in loo diraa cid u iibisa ama dadka lacagta la siinayo waa in bil qasab ay cunto ama haruur ama wax la miisayo ay ku iibsadaan ay ku cunaan ma ayna kaashaan u isticmaalaan taasi waa taa qiimaha fitradaasi maxay tahay saac weeyaan saaci nabigu markaan waqtigan xaadirka uu bedelo waxaan kala iska dhaafay inta soo qiimaaya kadalika waxa weeyaan 2 kiilo iyo 40 gram 2 kiilo iyo 40 gram weeyaan saaca nabigu marka qofkii walba saac baa lagu leeyahay marka in waqtigan xaadirka halkan 4 pound 5 pound 3 pound kolba sidii masaajidadu ay qiimeeyaan ayay tahay inta la xisaabiyo inta qof hadii 3 pound ay yiraahdaan ama 4 pound 4 pound baad ku dhufanaysaa inta caruur leedahay iyo gurigaaga wixii ku nool inta soo deetar kadalika ay wax soo siinaysaa lacagta marka waa saac kaliya qofkii saacuna waa 2 kiilo iyo 40 gram meel ku qorta 2 kiilo iyo 40 gram saaci nabawiga kaleey salaatu wasalaam waqtaha goorma la bixinaya ma xilliga la doona la bixinaya ma waqti bay leedahay waqtigeedu wuxuu bilowmayaa غروب الشمس يوم ليلة العيد habeenka ugu dambeeyay baritooda ciid la tukanayo cadceedu markay dhacday inuu afurno waa maalintii ugu dambeysay ramadaan inuu afurno eelaama maghribku waqtigaas uu bilowmaya in la bixiyo maanta ramadaan ugu dambaysa todobadii baba la eedaamay habeenimo waynu Allahu akbar buu salaadii maghrib afurkii baynu cunno maghrib baynu tukanay waqtigaas ayuu biloobmaya zakaatul fitrada in la qaybiya oo la bixiya qofka banaadinka marka waxay yiraahdeen culimadu hadii uu dhinto
qabla alghuruub intaan cadceedu dhicin hadduu dhinto toddobada maalinta u dambaysa ramadaan toddobada leedaamaya ka soo qaad qofka hadduu lixda habeenimo dhinto laguma laha sakaatulfitra haddii uu toddobadu leedaamaya hadduu qofku toddobadii barhka dhintana sakaatulfitra waa lagu leeyahy oo in laga bixiyo oo weligiis iyo dadkii uu dhaxalka uga tegay inay ka bixiyaan weeyaan haddii uu ilmo dhasho cadceedu markay soo toddobada iyo barhka markay cadceedu soo baxdo maalan yani cadceedu markay soo baxday kadib fitra laguma laha haddii fitra kadalik qofka kaa laguma laha waayo qofkii wuxuu dhashay cadceeddii markay soo baxday kadib waqtiga wujuubkeedu markaa ka bilaabmaysa waa quruub shams markay cadceedu dhacdo ma habeenka ciidda waqtigaasi waa dee waqtigaas fitra loogu talagalay dadku markaasay soonka jabiyeen ay yidhahdeen culamadu azaman waqtiyo badan oo dee la bixin karana way jiraan waxay culamadu yidhahdeen waxaa jira waqti fadiila oo ajar badan iyo waqti jaa-is ay bannaan tahay oo dee xaqu kaaga baxayo marka waxay culamadu yidhahdeen waqtiga fadiilada ah ee ajarka badani waxa weeyaan subaxa salaada ciidda marka kusii socoto salaada ka hor qabla salaa مثلا بس صلاة واحد هذا سيدها صباح لما تكون هنا كسر قاعد عيدة قف كشنطة من لحدها بصباح لما ما تضبط الصباح لما بحياه واحد لقى وفي يعني وفر لك بدله أدي بوسبل تودي قف كركريو تصع وفر لك بدن وهذا دليل حديث كي البخاري كشري أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحولي كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت عيد الفطر جا وواجب بريو أي نص ساعة انتظر بحين شرناي وكان يلي النبي عليه الصلاة والسلام وحيد هذا الصحابة إن ابن عمر وحولي كما في حديث رواه الإمام مسلم وغيره وحولي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر زكاة الفطر إلا بحيه قبل الخروج الناس إلى الصلاة إن كانت تدخل صلاة وبحن إن نبحنه ولذلك صلاة عيد وذيك عركي عيد رمضان هراء صلاة عيد دب الله يردك عيد حج كان ولا تدجيا عيد حج وحلا تدجيا سيدت كدنا ففبي قلنا يعني انت صلاة وكذا إن ففكوا ذي وقتان وضحيض ذي قلان عيد رمضان وحلو دب الله يردك إن تدخل بالمساكين هلا أنا يسيان يسكت صوت دبران ما كقف من مساجد كي ما دام صلاة ما دام الكل قلت كني ويمادو يسقوا حوله سفي عن السوق يبي والكا حوله كدبري تاسنا ولا عليه يدنا واتا أي هو بشغلين لو فاهم سيء لكن وقت جائز كي وقارما يعني وقت كي فضيل كي وحويانا وناكسني أجرك بدل له وحويان صلاة عيد أنت كهريسة لكن قول قفك بنادك بحين كريه قفك بنادك علماء وحاي شيئا عيد مالين أما الله بكهر إنه قفك يسكب بحين كريه يعني عيد مثلا بس صدم رمضان صدم بالسومية ما أنت استدي الله بعتنا ما سقالي الله بعتنا ما صدم قفك زكاة الفطر جوز كسب بحين كريه زكاة الفطر ويسكا بحين كريان العلماء تانا جائز بكردقان ففي صحيح البخاري نافع بقى صحيح البخاري لقى سورني قال وحولي ابن عمر وحب بحين كري المهير يقف كوين حتى أنه كان يعطي عن بنية عروت يذو حتى وحكب بحين كري بويلي وكان يعطيها الذين يقبلونها قف يقبلون وسين كري ابن عمر لا رأى لك النغذي وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وحانوا بحين كري ابن عمر فطر قال كهر عيدة ما لنا مالله بكهر ابن عمر رضي الله تعالى عنه لنهاية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والراعي كري بوها وحوان كي النبي قدوم مال فريستو فريستان جرون كي النبي كان فريستي قدوم مال النبي كوه كان شري واركي النبي مال كوه كذي وكوه كان شري تاسي واسيدو طلاب النبي عليه الصلاة والسلام وراعي شري مركز سجي بدأ دوماني الله بكهر قيبي تاسي وحين عضينيسا إن جائز تهاي إن ماني الله بيد كهر لقيم كريو لكن وحقو فضل بدن صلاة إيدا إن يركهر وحرمنا ينوكلين إن شاء الله ما بنانتي صلاة عيد وحكا دنبيسين دولة وديغو waxay culimadu yiraahdeen ma banaana salaada ciid hadii la galo wali sakada bixinin hadaad marda hadaad salaada kadib bixisid waxa weeyaan sadaqa min sadaqat salaada ka hor hadaad bixiso waa zakatul fitr salaada wixii ka dambeeya hadaad bixiso waxay culimadu yiraahdeen waa sadaqa min sadaqat waa qof sadaqa bixiyo لكن صلاة كهر ويكون حسابنا زكاة الفطر وأجر زكاة الفطر قال لي هذه لكن صلاة إمامك الله أكبر الله أكبر صلاة تكبير بنيت دي لقالوا صلاة كدب وحياد بحساب ما أنت وحياد بحساب وصدقة من الصدقات فقهاء رحمهم الله دور حالة ذود أي نوش هيجن أي لهذين ويبنان تهاي إن حالة هاسي قف كاسي دو بحين كرواي حالة ها إن مرضى مو بحين كريو زكاة الفطر لو حسابي كريو وحي لهذين qofka uu ciidi si degdeg ah soo gaadhay isagoo haynin cid wax siiyo qofka isagoo bad safar ku maqan oo barka ama saxraaga joogo kale ciidi soo gasho qof kale wakiishay qofkii kale uu ciidiisa uu ka bixin kari waayo sababay sabab min asbaab qofka waayaba cid Allah cid miskiin wax la siiyo intaas waxa la yiri xilliga doonaan bay bixin karayaan oo waajib kuma aha فلا بأس بين هذه العلماء سيدة الألباني وغيره فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور قطة كدباتوين كاسو كل عام يد كدبوا بحين كريا ما صلاة عيد كدبوا بحين كريا وهي معذور قف وهي بعد الصية دي لأن تعيد الأيام مركها هو معذور
qofka ku maqnaa saxraago ama gaari kaga jabay ama isagoo soo socdo reerkiisii ciidii laga hor ilaamiyo salaadii laga hor tukaday kadalika qofkaasi waa macduur qofkii qof kale wakiishay qof kale kuwii lacagta iga sii bixiyay dhaban ku siin doonaa qofkii ama iska ilaaw ama ka dhoofay ama ka tagay qofkaasina kadalika waa macduur xaga meesha lagu bixinaya waa xagee fuqaraaga meeshaas lagu bixinaya ama meesha joogan ama bilaad muslimiin marka culimadu way fasaxeen in maanta lacagtaas fitrada hadda ingiriiska aynu joogno ama aynu jarmalka joogno ama aynu sweden joogno oo inaan bixin karayn wadankii waa loo diri karayaa مساكين تلقى ويشوغان بلاد المسلمين ابن عثيمين غيره ويكف رحمهم الله ويكف فتوذين إن لو دري كريا تدكا أو تدكا زي كفايدي سن كريان لا سيما إذا كان مكانا فاضلا كمكة بويلي وعيل هذا دي مكة أو كلا في اللي قدوا بدن تاي مساكين تودنا ويكحوا المدينة مساكين تكلا أما مدينة أما فقراء ذو أي ماشي يشوغان ماشي اللي يشوغان معنا مال كلا أي فقراء دي بعتي سنة يجران فإنها تدفع إليه تدكا حق لزكاة الفطر كانوا فقراء ذا iyo qodadka deenka lagu leeyahay qofku deen uu qaadan karaya qofka deen lagu leeyahay waa la siin karaya si deenka iskaga bixiyo qof kaliya dhowr saka fitr la siin karaya yaani midalan maskiin kana adigu la siin karaysa zakat fitriga aan siin karaya hiblaayana siin karaysa saddex afar shaqo baa qof kaliya siin karaya zakat fitri kaliya dhowr qof loo qaymin karaya يعني مثلا بس صدق عفر قفوي نوي بس قاعد تفترة جاي عن ميدو بين رشوا بكريا أما كل جاي أما دور قفوي نجي نقوم إذا بقف كليه وضع شو بكريا قف كل سقعت الفترة بدل الله شو بي حاجة دي يصير دافتي يسوي صدقة بحين كريا أنا علماء وحيد هذا برنامج تاعي يسوي اللي سيب وهذا يسوي دبو سيب بحين كريا أي صدقة يسوي ناس سقعت الفترة يسوي ونقول يسا يجوز له أخذها بعد دفعها أو كما قال رحمه الله أما سيدي الهذين حلقة التنساس أنت سنة قد معطي زكاة الفطر جوحنا إلهي كرجينا نسيف عنه فهني حلقة إلهي سبحانه وتعالى إنه قنفعه هو سون كذا سيف عنه الصوم زكاة الفطر كذا سيف عنه بحية صلاة وعيد سيف عنه وكذا إلهي سبحانه وتعالى ورقابته ذا النار تسأل الله سبحانه وتعالى كفرته إلهي سبحانه وتعالى كواه نغيله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. haddii uu barnaamijkan ku dhaafo ka daawo safifilms.com